كتمت سمادا صدري قايو الله هبتنا ليس كساها محيي صوبا قايو عهانا ويسوسو ما هيان سمعة دايو شرفتنا ونسيمانه هنولا تهليره سملا هايستان هنولا تهليره سملا هايست يحيى وطني وادي لا جيبي دوتين يستحدوا أدونك وانا كاذنه أفشي شيء يينو أدون أنه أما كاجي يا أرجع أبو معانو إيشك محاكو درك أبو معانو أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وأنتو قف بقشة عينا لا تحيانا دبلوما أبو ردتي أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وأنتو قف بقشة عينا لا تحيانا دبلوما أبو ردتي عباري أوضل البان كجرني أبنو أمسيو البان كلني وانا سيسنه كواوي أبو معانو إيشيك محاكو درن أبايا معاني وانا سيسنه كواوي أبو معانو إيشيك محاكو درن أبايا معاني أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وأنتو قف بقشها عينا لا تحيانا ما أكتحي دبلوما أبو ردتي أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وأنتو قف بقشها عينا لا تحيانا ما أكتحي دبلوما أبو ردتي وما أكسنتي يرتبان كوسو نقونينا يا مانسوينكي ان زينب وردير عقل او ardayda dhigata jaamacadda University of Minnesota ardayda macalin Saciid ee fasalka af Soomaaligana ka dhigan jirtay jaamacadda maanso inoo qaadaysa badanaaba lagu tilmaamay inay tahay maansahan weyneed oo buraanbur ah oo iyada raxmano waxoogaa inooga maasootay ayaan ku soo dhaweynayaa Zainab بسم الله الرحمن الرحيم إسلام بنا يا شهاتك قرنا إله بنا منا يونقون سناي وماتنا بمحمد الكذب هينناي أفريكا جيس كذيو أرنكا هندقنا أريقا يجيل الله داني لا جنا أف سوماليغو أستانتنا ويا ساري يا قنسيغا غاران إدتاوغو أفكني هو يادكين بوباياي أفرتن سانا بوجراد نواويل iskoolada lagu madhigo hoyo aqoonta saare ilmihii Soomaaliyeed weylooyaan anigu ma aqaanada habay ku oranayaan sida ugoodna eelkooda lama hadlaan isku kalsoonaanshadooday waafatay aqoontoodiina aad bay u liid
liidataa ee waa inaad idilkiin baariinka ogsoontihiin afkeenna markii la qorahay waad ogsoontihiin daadii ololaha u qaadee udbaa u mooday aqoontoodiiyo iskoolkoodii joojiyeen iskaa u shaqeeyaysa aqoonta ku faafiyeen in dhergaaradkiyo aqyaartii markay kulmeen arrimo laalayaaba waatay abaabuleen oo adduunyadu abadankeedaanay horawarag ee waa inaad idilkiin baariinka ogsoontihiin waxaan kusoo gabagabaynayaa hal baraanburo duco oo mawduuca ka baxsan oo la yiraahdo allow ha qasaarin qarankeena quruxda badan qaranku waa qaranka Soomaaliyeed meel walba shanta Soomaaliyeed dhulkay degto oo afkaanuna uu yahay afka hooyo insha Allah maadaama ay qalqal iyo dhibaatooyin badan soo dhaxgaleen laakiin koran ku ciina waana ka baxayna waa experience insha Allah allow ha qasaarin qarankeena quruxda badan allow ha qaribin islaamkeena qaaliga allow qawiyey quraankeena qowlallah allow nabad qaali weeye qabowna sii allow qayrkeena naga reebin qaadirow allow qaajadiyo abaartaana naga dulqaad allow qarankeeniyo qayrkiisoo noqdaa qaxootiina loo dhammaan way khasaara dhicin oo qaaman kale noo imaan oo dalkii qabsada gumaysigii aan qubnaan ahaan dib loo qotoomin carruurta la qaadanoo qoysaskii la doomin oo sidii ged qiididka laga siibay aan qalaalin xagaagii hore la soo dhaafay maraan wadanka Soomaaliya yara gaaray ayaa nasiib wanaag waxaan la kulmay abwaan Hadraawi Maxamed Ibrahim Hadraawi marka waraysi yar baan sameeyay aan wareysanayo suugaanta siduu soo galay iyo hal abuurnimadiisa maksaan waxaan weydiiyay taadu ma dhaxal baa mise waa hiba xaq Ilaahay ka siiyay maksuu 20 daqiiqo qofkii Hadraawi yaqaan uu kala fasirayay sida ku timaado dhaxal tamida ah iyo tahibada Ilaahay dadku ku dhaliyay abwaankan da'da yar leh nasiib wanaag isagu labadiiba uu leeyahay hibo in Ilaahay uu siiyay dhaxalna uu helayo waayo aabihiiba abwaan weyn oo caana ah hooyadiina waa marwada ay hor fadhido iyadana laftigeeda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed kama farmarnayn waa hadaan wali ila garanin waa Cabdillaahi Xasan Cabdillaahi Gani Xasan Gani iyo cadalkaahi inaan kuuliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هراء وحن سلامة يا دمان مرت شرف كسر قريب كشيء حفلة سيدا قروح بدن الله سوى قاسمي لو هيلين يو أفكار الصومالية وحن سيجارة وسلامة يا مرت شرف تا إنه قص عطر هيك جبوتي في الصومالية وهيلين إنسان وحن كلام سلامة يا ضد كلاية سوق من قبيح حفلة أفكو وأخذ بدحات كأمضى هدي أنا ماشي كبحو ومدرنا ما يشرتو مركا أفكو قيمة هذا اللي قيمها أفك قيمها على دوه لسانه وعد ومدني ماذا دوه لسان مركا وحلانا أبال بان ده هنا عدول وأف سومالي دوه لسان هل كان واحد ربعنا كآخريو مع تمام إسا دليله هايستا ومدة الصوماليات يسد كوي مادين يسد لو بكرو markaad eegto ummadda qofka Soomaaliyeed oo qof aad u fiican waa qof karti leh waa qof naxariis badan oo jecel dadka inuu caawiyo waa qof furfuran waa qof la heshiin karo laakiin ummad ahaan markaad u eegto sawirka ka duwan baa soo baxaya waa ummad dagaalamaysa waa ummad haysata waa ummad dib uga dhacday adduunka intiisa kale marka labaas isku qaban kari waayay gabayguna wuxuu faahinayaa in marka laga tago midnimada isjacaylka wada shaqaynta iskaashiga inuu burbur sharciga la dhaafo xeerka la dhaafo
inuu burbur dhaco burburkaasina wuxuu taabtaa dhaqanka dhaqaalaha qoyska diinta afka ilaa marka dambe dadku inta meesha kala yaacaan qolaba qoladay u qaxday ay afkoodii qaadato oo la yidhaahdo ummad Soomaali loo jirtay halkaa deganaa jirtay markaa gabaygu wuxuu ku bilaabmayaa sidan maanku way gurxamayaa su'aaliga ku weyn buu hadba soo gudbinayaa caqliguna galgalashada garabuu ileeyahay guntimaha dantaydiyo galdoloola aan qabo waxa iga gufayn kara tala iga gablooshiyo guuldarooyin baahaa madaxayga gadayo mana nooli mana guyin markan gaar ahaanshaha la faguray waxaan ahay dadka gacal intaan qabo gododegay itaalkay alla ilaahay garmooyee guuldarooyin maan arag markan magaca guud iyo Soomaali gabigeed gol u fiirshay eendayay gocandooyin mooyee alla ilaahay gomaan arag afartaa gadoodka guubaaba mooyee guji oo waxyeel iyo ismalihi cid guulguul waxsan uga gol leeyahay tu u gaara mooyee dantii guudba lama qaban dad malaha gaararkeeda iyo garbaheeda mooyee maydu dayin gunteedee dantu waxay la guri tahay ama noloshu guudka iyo gondaheeda taalla hadba sidaad gugaagiyo u gorfaysa waayaha waxaan soo gudbinayaa ama gabaygu leeyahay gallad waxaa samayn kara guushana jilbaha dhiga dadka garasho dhaansada tala la isku geeyiyo garabsiga aqoonta geediga dhul doogliyo geyn kara barwaaqada waxaan uga gol leeyahay dal wuxuu gadoomaa dadna ganac wareegaa ama gayigu iisha geeduhuna ooyaan ciiduna gumowda adduunyadu ku goysaa gabdhahaagii nuurka iyo sida ubaxa geedaha hiri jiray gu iyo dayr guluubkoodu shiikha geenyooyinkaagii xidhan jiray guntiimadu hadba guuraha gobollada shisheeyaha iyagoo tahriib galay gocorradu shidhaystaan sharaftaadu gubataa garhmadoobahaagiyo guurtidaadii sheegnay geesigaagii sheegnaa iyo guurtidaaduba gidaarada fadhiistaan barna ciidgadoodiga intay gogasha hiifaan badda gawda haysiya gacamadu ilaystaan gosha xeebahaagana sunta lagu gumaadiyo bamka guba adduunka iyo geeridu timaadaa dhirta geedahaagana dhuxullahu gumaadaa afku kaa gadooma luuqadaadu guurtaa laba uurka wadagalay is-afgarani waayaan dhaqankaagu goosta dhiigaagu guura samihiiyo iskarabsiga marka laga gucleeyee nimba garabu rooree gujo iyo waxyeeliyo ishoo laysku giiriyo golwareenku faafee gurboodka iyo carruuraha laga gooyo samihee garab u taagiyo qabiil laysku kala guro guula sahashaa ama sama la gaadhaa carraduna guyaadiyo ubax wada guduutiyo geediyo nag saartaa cudku godol daroora gugu iba samaada guunyaduna naaxda gacmo wada jir weeye marka laysla garab galo gunnada iyo iska cashiga gabdhihii iyo barbaartiyo dhallinyarada guudka iyo garhku weli madow yahay adaan kuu golleeyoon gaar kugu baaqee garashada haweetayn gudashada haweydayn ha ka guban tilmaamaha hana tirin garaadada hana tuurin guulaha hana moodin gaaladu inay kaagu weynto hanka ha iska gowraci gabdhihii iyo barbaartii iyo dhallinyarada guudka iyo garhku weli madow yahay adaan kuu golleeyoon gaar kugu baaqee higsashada ku gaadhsamo hirashada ku goob nolol habrashada go-ow tuul hagrashada gadaal mari qoloqolo ka soo guur gacmo wada jir weeye qoomiyadu soo gudub dhallinyarada guudka iyo garhku weli madow yahay adaan kuu golleeyoon gaar kugu baaqe bal gadaal nafta u tayo galin qudha ismiisaan waxaad guddo waxaad gasho isu gara waxaad tahay waxa kula gudboon qabo garabare adduunyada guddoonkeedii baatee godla naasaheedoo midhaheeda wada guro gabagabada jiiftada wuxuu gabaygu leeyahay hadda guushu waa been haddaan gudasha meel marin gobonnimadu waa muuq haddaan guurti maamulin geesinimadu waa madow haddaan garasha maarayn geyigaagu waa murug hadba xoogga kaa gala gabayguna mur weeyaan hadduu gawsku tabaniyo sharciguna ma geediyo dad haddaanu dhaqan gelin waa mahadsantihiin waad aragteen hadaaka maaragtay muxuu ahaa dad waalidaho waaweyn maaragtay maxaan af Soomaali kaga daalinayaa maaragtay carruurteeda Soomaaliga maaragtay iga wareerinayna maaragtay
afkii wax lagu helayo ingiriisi iyo magaranaysa carabi marka waxa weeye waa halis yani jirta yani waagii ay inta burburkii Soomaaliya ka hor yani af Soomaaliga wuxuu afka Soomaaliya afka maamulka dawladda tacliinta iyo warbaahinta intaba wuxuu kaloo ahaa afka fanka iyo suugaanta iyo halabuurka ayaduna yani muxuu ahaa meesha uu afku ka nool yahay oo ay ka bartaan magaranaysaa dadka dhalinyarada soo koraysa yani afka af Soomaaliga wanaagsan oo heer kasta ah waxay ka baran jireen anigu markii aan ku jiray maartay da'daas يعني هو Soomaali baradka oo maartay yar yarayn waxaanu idaacadaha waliba BBC-du ay ugu horeysay iyo tiyaatarka baa ugu weynaa maartay meelaha afka riwaayadaha iyo heesaha ayaa maartay yani muxuu ahaa noo ahaa waxaan la yiraahdo mooda meel laga tilmaan qaato oo afka laga qaato marka intiiba way kale wuxuu ahaa dee maartay afka tacliinta iskuulada lagu dhigi jiray marka caruurtii marka ay iskuulkiina dugsiga ku dhiganayaan oo af la soo xulay oo laga shaqeeyay oo muxuu ahaa manhaj ay dad aqoon-yahana maartay Siciid Saalax ka mid buu ahaa ay soo diyaariyeen lagu ababiyo iyo suugaan loo soo xulay warbaahin dawladeed oo uu ka tilmaan qaatana ay magaranaysa oo afkeeda la xulay oo ay ka shaqeeyaan muxuu ahaa dad ku wanaagsan afka riwaayadihii iyo masraxii iyo maartay iyo waxaas heesihiina ay maartay waa kuwa jecel dhalinyaradu marka waxaasaa u ahaa marka guriga laga yimaado iyo hooyada lafteedu hooyada maanta joogta ma ahayn waxa weeye si ula kaca ayay maartay yani dugsi u ahayd waxaan carabiga la yiraahdo al-ummu madrasa in a'dadta jiilan tayyib al-akhlaq يعني dugsiga ugu horeeya waa hooyada marka hooyadu waa iska way markiiba way ka celin jirtay yani laxniga hadduu si qaldan u yiraahdo ilmuhu maartay yani fuura may aran sasan u toosinaysay marka intiiba waa burburay wixii burburay baa la burburay maca hooyada sheegay hooyadii iyo markay kala qaxeen familygii iyo maartay qoyskii uu burburay oo ay kala haad noqotay hooyo yani muxuu ahaa ilmihii dul taagan iyo afkeedii iyo waxa meeshii waa ka baxday inta kalena iska badaaday iskuuladii warbaahintii maartay qiimaha lahayd qaranka fankii iyo suugaantii iyo tiyaatarkii magaranaysaa iyo riwaayadihii ay wax ka baran jireen dhalinyaradu meeshii fawday noqotay waxaa dhimatay waxaa meel laga tilmaan qaato oo da'dii soo koraysay ay ka tilmaan qaataan ma jirto way kala habowday dhibta kaloo dhacday waxa weeye nasiib darrada waxaa abuurmayay mujtamac magaalo muqdisho waxay ahayd waxay noqotay meel madal yani ummaddii oo dhan kulmisa meel kastoo ay ka yimaadaan dadkii waa magaaloobayeen af magaalaha samaysmay af dhexe oo standard oo magaalo oo ah kaastii laga baranayo maartay suugaanta halabuurka iyo maartay iyo warbaahinta iyo markii ay waxaas lagu kala tagay dareenno waa jiray dee maartay qarannimo iyo waxa intii oo dhan markay burburtay waxay noqotay nuufa qolo waliba inay intay ku noqoto xaafadeedii iyo magaranaysa tuulooyinku baadiyihii meeshii ay ka timid meel whatever ay lahjadoodii iyo magaranaysaa yiraahdaan waxaan kuwan annaga waxba naga reer hebel baale maartay afkan iyo magaranaysa oo lahjado loo kala burburkii marka afkii waxaa la sii burburkii kuma ekaan dee dawladnimadii iyo magaranaysaa iyo magaaladii iyo xataa afkiiba waxaa loo sii kala burburiyey inay qolo waliba tira anagu kana leesaan aan ugu hadalaa sida ma dhinaca oo ilmihii markuu dhalinyada soo koraysay ay magaranaysaa kii standardka ku hadlaa yiraahdo waxaas maxaad ku hadlay maaha inaga afkeena iyo saandi maaragtay marka ka iska badaad dadkan marka qaxaan iyo muxuu ahaa qurbaha iyo markii la yimi iyo maartay ubadka ku koraya ayadu waa sheeko kala weyn oo xogteedu maartay ka dhagsantiin dhibaatada ka jirta yani afka laakiin taa kaliya ma idinku waxa fahamsantiin oo dadka badankoodu ay la fahamsay caruurta qurbaha ku koray maartay afkii iyo waa ka lumaya iyo dhaqanka iyo waxa oo waxa loo haysaa inay kuwii wadankii ku haray jooga ay fiican yihiin oo ayagu maartay afkii iyo haystaan iyo magaranaysa laakiin taasi ma jirto nasiib dar anigu waa tagaa mar walba maartay dhulkii waana joogaa markaan ugu fogahay Djibouti baan joogaa aadan xoogaa lagu ah
aad baan uga naxaa marar badan waxaa dhaama kuwa gudaha jooga maanta oo soo koreeyay maaragtay labaataniya soo ugu dambeysay waxaa ku dhaama af Soomaaliga iyo maaragtay yani dhaqan iyo waxa caruurta qurbaha ku kortay oo waalid yani xilkas ah oo xil iska saaraya inay ku hayaan afkii iyo dhaqankii yani ay dhaleen baa kaga fiican yani muxuu ahaa yani in badan ayaa la oran karaa maxaa yeelay waxa weeye waalid jaha wareeray oo maaragtay iska galanumay oo aan maaragtay ama waalid la'aan ba hadday doonaan ma jiro yani qoys family maaragtay yani dhan oo meeshii ku haray jooga taasi waa dhinaca kale iskuuladii wax laga baranayay meedii waxaan sheegaynay oo dhan wixii ma jiraan oo meeshii maaragtay ma helayaan bedelkoodii waxaa la keenay afafkaas kale oo kusoo duulay oo waxaaba lagu in badan yani waa lagu diraaba maaragtay af Soomaaliga wax jaahiliyad iyo waxaasi baa loo arkaa waxaa la yidhahdaa maaragtay yani af carabiga iyo baa ah maaragtay yani muxuu ahaa afkii ma afkaagii iyo afkii magaranaysa aad wax ku helaysay iyo waxa af carabigii lama diidana laakiin waxaa jira dad u dagaalamaya inay af Soomaaliga meesha uga saaraan carabi haddii si fiican loo fakarayo iyo dadka sida caafimaadka qaba u shaqaynaya af carabiga iyo Soomaaliga in la isgarab wado af carabiga iyo afafkan kaleba maaragtay ingiriiska iyo in laga faa'iidaysto oo magaranaysaa aqoonta uu xambaarsan yahay maaragtay yani laga faa'iidaysto la barto waa afkii diinta waa af aqoon badan xambaarsan laakiin isla markaa in la wada xasuusnaado ummadani inay af leedahay iyaga ay leeyihiin oo afkoodu inuu yahay af la yidhahdo af Soomaali taa inaan lagu xadgudbin oo la wada ilaaliyo waajibka ay noqoto in lagu dhigo iskuullada marka waxaasoo dhan markay iswada biirsadeen warbaahintii markii ay soo noqotay awl way burburtay meesha ka wada baxday markii ay soo baxeen idaacado iyo telefishinno iyo waliba intoora ka badan oo af Soomaali ku hadlaya nasiib darro waxay noqdeen wax habaabiya yani da'da soo koraysa halkii ay awal ay u dhowan jireen maaragtay meesha laga tilmaa afka wanaagsan laga barto hadda waxay noqdeen meeshii afka xun yani laga baranayay oo garanaysa caruurta ay yani muxuu ahaa waa aragtay qofkii af Soomaali yaqaan markuu dhagaysto maanta yani idaacadaha iyo telefishinada iyo af Soomaaliga ku hadla websaydyada iyo iska badaa iyaga maaragtay waxa weeye waxa ku qabanaysaa yani waad muusoonaysaa maaragtay yani inaad burburiso maaragtay yani muxuu ahaa idaacadda ku soo dhacaysa mararka qaarkood marka waxa ugu daran muxuu ahaa meeshii wataan la BBC-du waxay ahaan jirtay iskuulka ugu weyn oo maaragtay af Soomaaliga maaragtay yani dhisan oo standardka ah oo tayada leh qiimaha badan maaragtay yani looga daydo waagaan sheegayo aan maaragtay idaacadahan ka baran jiray maantana waxa weeye yani waad aragteen maanta af Soomaaliga ay BBC-du ku hadasho oo ay ku hadlaan waxa weeye waa jariimad weeye waa faraxumayn weeye abuse yani waxaa la abuse garaynayaa afkii marka waxaan rabay taa inaan ku sababeeyo inay dhab ahaan jirto afkani in uu halis ku sugan yahay hiilna u baahan yahay marka waxa weeye hiilka yuu uga baahan yahay yaa u hiilin kara yaa badbaadin kara sababtu waxa weeye waxa uu hiil uga baahan yahay badbaadinna kara xilkaasina wada saaran yahay in allaala iyo intii garan karta yani xilkaas waxgaradka waxaan la yidhahda waxgaradka Soomaaliyeed wax allaala wixii waxgarada oo Soomaaliya ayuu saaran yahay xilkaas oo danaynaya maaragtay jiritaanka maaha oo kaliya yani afka af ahaantiisa waxa weeye jiritaanka ummaddan oo jiritaankiisu ku jiro qof walba oo hadday meesha ka baxdo jiritaan sharaf leh ay yeelan weydo ummaddu qof yeelanaya ma jiro shakhsi iyo qabiil yeelanaya iyo min ma jiray marka jiritaanka ummaddu waxa uu ku jiraa jiritaanka afka iyo waxa uu udubdhaxaadka u yahay oo ah dhaqanka iyo waxa halbowlaha nolosha oo ah suugaanta iyo halabuurka iyo qoraalka inuu noqdo af qoran oo qoraal yani qiimo leh
sababta awgeed iyo dareenka aan intaan soo sheegay oo dhan yani aan dareensannahay ayaa wuxuu nagu dhaqaajiyey qoladayadan dadka qaarkii ay muxuu ahaa dhiirigelinta ayagoo ku mahadsan ay nagu siinayeen wax fiican baad samaynaysaan oo ah dadka hadda waxaanu isku magacownaa ama maqan inay cidi noo bixisay iyo inaanu anagu isu bixinay tabliiqa badbaadinta af soomaaliga tabliiq wareega oo sida dacwada maaragtay loo wareego ajarka maaragtay laga raadinayo baanu u wareegnaa oo maaragtay sidana kolayga iyaga iyo waxaa la wareegay meel walba aan leenahay waatan albaabkii laga geliyay badbaadada ummad musiiba ku dhacday baan nahay inaan isbadbaadinaan u baahan nahay isbadbaadinta badbaadada iridkii laga gelaya waa kan bal aan badbaadinno waxaan duntan yani weli isukaya haysa ahna aaladda aan isku badbaadin karro waayo iyada wixii aan wax isugu sheegayn oo tashanaynay ku tashanaynay wallahi war maxaan ka yeelaa dhibaatadan xaggee marra see jiritaan wadana isu kaashanay haddaynan afkii aan isugu sheegaynaba oo maarata meesha ka marka tabliiqaas waxaanu si kale erey kale oo aan isticmaalaa jira oo la yidhaahdo gurmadka daryeelka af soomaaliga gurmad buu u baahan yahay oo idinka arkaa waxaa halista kusoo qool leh marka haddaan loo gurman halistaas kama badbaadaya gurmadkaasi marka waayo gurmadkaas weeye waxaan u qaylinayno waxyaalaan idaacadaha ka maqashaan waxaanu u samaynay ururkan hadda magaciisa aanu ku soconno oo aanu u bixinay naadiga qorayaasha iyo naadiga qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed wuxuu noo yahay aalad aanu gurmadkaas u adeegsano ayuu noo yahay oo aanu ula tagno ciddii ehel noo noqoto hiil wataan lahaa hiildoonka aanu maanta idinku nimi ayaan ciddii yaa maali jiray la odhan jiray yaa waxaan u damqanaya maarata meelay joogaanba waxaa ka mid ahaa tusaalayaasha lasoo qaaday inta naga hoos qaaday oo nala qabatay oo maaratay nala gurmatay waxaa ugu horeeya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo markii aanu maaragtay gurmadkaas niri muxuu ayaa maali jiray adigaa jooga meeshaan magaranaysaa mas-uul soomaaliyeed oo maanta maaragtay waxaan fahmi karaa oo lala miceysan karo oo asna markaa uu keliya nalama kicin oo nalama gurman ee waa naga horumaray waxa weeye runtii dadaal wuxuu sameeyaa xataa maarata mararka qaarkood annaga ma garanaysaa annaga naga dheeray hadda isagaa dhiirigelin iyo guubaabo yacni weyn oo asaga xaggiisa ka timid ayaa xataa keentay hadda wareegan oo aadan maarata yani noo macnaynayay leeyahay waa in dee ummaddii soomaaliya meelay joogtaba afkoodii ay munaasabadaas yani qiimaha ugu fadhiida weyn afka laysku baraarujiyo oo laga wada qayb galo cid waliba meesha ay joogto ay uga qayb gasho wuxuu yidhi baxnaanadii jiritaanka badbaadadii nolosheenna biyo soo naftu ma aha la-aanteedu bas maaha yaraanteeduna ba' maaha badnaanteeduna shil maaha baadisoocda aqoontu iyoba soo biyo maaha bi'inaaya haraadka ama baahitiraaya bulsho aadmi danteena ba ta jah xa iyoba soobiya ma aha waa biyooye iyo tuducyo ka mid ah maanse uu curiyey abwaan siciid saalax
waxaan taas dhextaal uga dhigay inagoo u gudbayna qaybtii hadalka weliba hadal aad iyo aad u qiimo leh qof aad iyo aad u qiimo leh uu nooga hadlayo kana hadlaysa xaaladda uu af Soomaaligu ku sugan yahay dalalka af Soomaaliga lagaga hadlo iyo innaga wixii nala gudboon waxaad sidii haddeerto si weliba ka si fiican aad mar dhow ula soo dhaweyn doontaan stage-ka Maxamed Daahir Afrax markan faalladiisa dhameeyo waa qoraa sheekooyin masraxa qora faaqida oo ah qofka kaliya ee ilaa alaanka ama ilaa haddaba faaqidad ka sameeya masraxa Soomaaliga ee af Soomaaliga aqoonyahan af Carabi iyo Ingiriisi iyo Soomaali wax ku qora buugagiisa Maxamed Daahir Afrax waxa ka mid ah guur ku sheeg maanafaay galti macruuf nida الحرية أو في عربي كقران sheekooyin gaaban oo fara badan ayuu leeyahay buugagiisa haddii aan ku sii socdo waxaa ka mid ah mid aan anigu shakhsi ahaan wax ka akhriyay oo aan ku baranay markaan cutubka masraxa baranaynay classkeena ama meertadeena afka suugaanta Soomaaliyeed oo aan akhrinay oo ah fan masraxeedka Soomaaliyeed raadraaca taariikhda iyo faaqidida riwaayadaha caan baxay wuxuu lafagur ka sameeyay buugu isagana ku magacaabay dad waaya iyo duni damiir beeshay xaaladda Soomaaliya isagoo Maxamed Daahir Afrax lafaguraya ay maanta ku sugan tahay Maxamed Daahir Afrax ururo fara badan ayuu isagu asaasiye u yahay qaarkoodna uu wali madax ka yahay oo ka mid yahay naadiga qaniinleyda Soomaaliyeed oo ay maanta madaxdiisa uu ka mid yahay inala joogaan marti inoo yihiin oo af Ingiriisi lagu yiraahdo Somali speaking pen oo qayb ka mid ah international pen ururka loo yaqaano wuxuu yahay Secretary General for Cross Board and UNESCO consultant ama la taliyo u yahay fadlan inagoo u wada istaagayna aan ku soo dhaweyno aqoonyahan qoraa iyo Dr. Maxamed Daahir Afrax بسم الله قلب ونعكسن خياري ضنياري مرغوين با وأنو إذا سلامينا سلام ديرن أيان إذا سلامينا أردنا هاي وفتية مرتدى دينا salaan diiran oo aan idinkaga sidno dhulkeennii diiranaa halkii ugu sii diiranayd iyo Jabuuti aad iyo aad ayaad noo diiriseen idinkuna diirimaadkii aanu ka soo xambaaray Jabuuti oo aad u diiran mid ka sii diiran ayaad nagu diiriseen halkan aad ayaadna ugu mahadsantihiin soo dhaweynta ilaa xadkan sidaa u diiran iyo waxa lagu farxo oo halkan aanu dhageysanaynay intii aanu fadhinay oo ay nagu soo dhacayso idinku bal iska aamuso oo dadkaanu dhageysta waxa Ilaahay ku shubay murti iyo aftahamo aad iyo aad bay noo diirisay aad bay noo farax gelisay aad baan idinkaga mahad celinaynaa intaas oo dhan soo dhaweynta suurtagelinta munaasabadan fursadan na kulmisay suurtagelinta inaynu kulanno oo aan ku diirsanno in aanu la kulanno intan hor fadhida
oo shaki la'aan ah labeentii bulshada Soomaaliyeed ee geyigan Minnesota iyo wixii soo raaca oo meelo kale ka yimid hore idinku mahadcelinta uu magaca wafdiga usoo idinku mahadceliyey saaxiibkay Aadan Xasan wax badan oo wixii murtida yani hadalkayaga ama wixii ay ahayd inaan sheegno murtideediina wuu sheegay marka wixii anigu aan hadda ku biiriyaaba waxa weeyaan waa ka daba tuur yar iyo sii iftiimin meelo in hoosta laga sii xariiqo u baahan inta aan sii iftiiminta ama sii xoojinta aan sii xoojinayo waxaa ka mid ah mahadcelintaas guud ahaanna aad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta iyo waqtiga aad geliseen in aad anigoo og sida ay u adag tahay waddamadan oo kale qofku in uu ka soo safro danihiisii iyo meeshii uu joogay si uu kulan uga qayb galo intaasoo dhan joogo inayna wax yani ahayn ay u baahan tahay nafur marka kasoo qaybgalkiina iyo gaar ahaan qabanqaabada intii qabanqaabisay munaasabadan oo uu hormuud u yahay abwaan macalin Siciid Saalax iyo xirtiisa magaca meertada maartay lagu soo celinayay meertada halabuurka iyo suugaanta oo ah safiiradii halkan noo joogay haddaanu nahay qolada muxuu ahaa qolada magaceeda ku soo halka ku marayno oo ah baxda qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed oo uu matalo naadiga pen haddaan nahay waxa weeye waanu ka filaynay waa muxuu ahaa wakiiladayadii iyo magaranaysaa xididadii noogu jiray dhulka meel walba xertaas ama muxuu ahaa murtiyahankaas uu yahay hormoodka Siciid laakiin ma aanan filayn in ay munaasabad heerkan gaarsiisan ay muxuu ahaa nala ku soo dhaweyn doono marka waxa aan jeclahay in aan sii iftiimiyo oo ugu weyn waxa weeye dhowr su'aalood jawaabtood maxaan nahay annagu qolayadan socotada ah maxaan ugu kalifay in aanu soo safarno safarka sidaa intaasoo badahaasoo dhan yani maxaa looga soo tallaabay maxaan ku doorannay in aanu ka bilowno Minnesota markii aanu niri qurbaha hala tago iyo qurba joogta ha loo tago munaasabadda waanu isla fahamnay oo waa la sheegay badan baa la sheegay inay tahay u diyaargarowga iyo sii bilowga xuska sanad guurada afartanaad ee ka soo wareegatay qoraalkii farta Soomaaliga iyo u hiilinta af Soomaaliga iyo dhiirigelintiisa muxuu ahaa daryeelkiisa laakiin maxaa loo xusayaa munaasabadaas maxaa keenay af Soomaaliga in la siiyo ahamiyadda intaa leeg maxaa haysta oo jira oo dhibaatooyina maxaa laga qaban karaa yaa wax ka qaban kara maxaa ku soo aadan yani idinka yani muxuu ahaa kaalinta aad ku yeelan kartaan maxay tahay su'aalahaas iyo qaar la xiriira ayaa aan jeclahay in aan sii iftiimiyo haddaan ka bilaabo maxaan nahay waxaan nahay ergaan nahay annagu waxaan nahay ergo ammaano sida ammaano aan doonayno inaad nala qabataan ammaanadaasi waxa weeye ilaalinta iyo badbaadada afkeenna hooyo haddaan isticmaalo ereygii aadan sidii hadda sheegayay
habeen dhaweyd ku lahaa qaarkiina aan kulannay waxaanu nahay ergo hiildoon ah hiilka waxaanu u doonaynaa wax naga dhexeeya waxaasi waa wax qaali ah waa afkeenna hooyo hiil miyuu u baahan yahay sidee ugu baahan yahay hiilka maxaa looga hiilinayaa saddex sababood ayaa jira oo loogu ay khasab ku tahay in ay u hiiliyaan ciddii u damqanaysa saddexdaasi waxa weeye kow waa qiimaha uu leeyahay oo qayb ka ah qiimaha ummad kasta afkeedu ugu fadhiyo sababta labaad waxa weeye waa halis uu ku sugan yahay sababta saddexaadna waxa weeye waa hantida keliya ee la wadaago ee Soomaaliya wadaagto oo harsan maanta oo la badbaadin karo saddexdaas haddaan isku dayo inaan midba in yar kusii faahfaahiyo waxa weeye qiimaha afka waa la sheegay waxaan u maleeyaa waxaa ku filaan kartaba ereygii ku jiray abwaanadii yaradii soo koraysay ee halkan buraanburka nooga soo jeedinaysay waa ka xumay magaceedii waa iga duulay astaanta yani ku tilmaantay af Soomaaligu waa astaanteena sare waa aqoonsiga nala ku garto way soo koobtay way murtidu halkaas ku koobanta waxa weeye waana ummad walba taas waxyaalaha aan dheeraadeen way jiraan ummadaha kale xaaladda ay Soomaalidu maanta ku sugan tahay darteed astaanta ummad lagu garto weeyaan afku waxa weeye waa diiwaan waa dun waa dariiq waa diiwaanka keliya ee ay ku kaydsan tahay xambaarsan ummaddani wixii ay ahaan jirtay taariikhdeedii dhaxalkeedii sidii ay u fakeri jirtay yani diiwaanka uu ku kaydsan yahay oo keliya ee loogu tagayo weeyaan afku iyo murtidiisu sugaantu ay u tahay udub dhexaad ma lihin diiwaan kale diiwaan qoran ma lihin dadkeena dhaxalkii qoraa yani ummado badan waxaa u ah diiwaan wax qoran oo ay ka dhaxleen awoowayaashood oo ay taariikhdoodii iyo maaragtay murtidoodii iyo halabuurkoodii xambaarsan laakiin annagu taa ma haysano nasiib daro waa laga yaabaa inay jiri jirtay beri la qori jiray oo wixii jireen laakiin hadday jireen way lumeen marka meesha keliya oo in aanu ahayn ummad jirtay oo micno lahayd jiritaan qiimo yani sharaf leh kusoo jiri jirtay inaana meesha keliya oo markhaatigeeda laga raadin karo waxa weeye waa afka iyo halabuurkiisa weeyaan haddii la waayo intaa ay meesha ka baxdo waxaan nahay wax jira ma noqonayno كتمت سمادا صدريقا ايو لهبتناها ليس كساها محيي سوباقا ايو عهاناها ويسو سماحيان سمعدا ايو شرفتناها ونسيمانه هنولا تهليره سمالها يستان هنولا تهليره سمالها يحيى وطني وادي لا تجيب دوتين يستحدوا أدونكا وانا كاضنه أفشي شيء يينو أدونكنه أما كاجي يا أرجع أبو ومعانو إيشك محاك
محاكو درك أبو معانو أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وانتو قفة بقشها عيينا لتحيانا مقتحي دبلوما أبو ردتي أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وانتو قفة بقشها عيينا لتحيانا مقتحي دبلوما أبو ردتي أباري أوضا البان كجرني أبنو أمسيو البان كلني وانا سقيسنه كواوي أبو معانو إيشيد محاكو درن أبايا معاني وانا سقيسنه كواوي أبو معانو إيشيد محاكو درن أبايا معاني أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وانتو قفة بقشها عيينا لتحيانا مقتحي دبلوما أبو ردتي أفقلات أقوم تمية ما هي أفقلات أقوم تمية ما هي وانتو قفة بقشها عيينا لتحيانا مقتحي دبلوما أبو ردتي وما أكسنتي فيه yarti baan ku soo noqonaynaa iyo maansooyinkii Zainab Wardheer Cigal oo ah ardayda dhigata jaamacadda University of Minnesota ardayda macalin Saciid ee fasalka af Soomaaligana ka dhigan jirtay jaamacadda maanso inoo qaadaysa badanaaba lagu tilmaamay inay tahay maansahan weyneed oo buraanbur ah oo iyada raxmano waxoogaa inooga maasootay ayaan ku soo dhaweynayaa Zainab بسم الله الرحمن الرحيم إسلام بنا يا شهاتك أنقرنا إله بنا منا يونقون سناي وماتنا بمحمد الكذب هينناي أفريكا جيس كذيو أرنكا هندقنا أريقا يجيل الله داني لا شنا af Soomaaligu astaanteena weeye saare iyo aqoonsiga gaar ahaaneed taa ogow afkeennii hooyaadkeen buu baahan yahay 40 sano buu jiraadna waa wiil iskoolada laguma dhigo hooyo aqoonta saare ilmihii Soomaaliyeed way loobayaan anigu ma aqaanada habay ku oranayaan sidaa ugoodna heelkooda lama hadlaan isku kalsoonaanshadooday waafatay aqoontoodiina aad bay u liidataa ee waa inaad idilkiin baariinka ogsoontihiin afkeenna markii la qorahay waad ogsoontihiin daadii ololaha u qaadee udbaha u mooday aqoontoodiiyo iskoolkoodii joojiyeen iskaa u shaqeeyaysa aqoonta ku faafiyeen in dhergaaradkiyo aqyaartii markay kulmeen arrimo laalayaaba waatay abaabuleen oo adduunyadu abadankeedaanay horaa waarag ee waa inaad idilkiin baariinka ogsoonteen waxaan ku soo gabagabeynayaa hal baraanburo duco oo mawduuca ka baxsan oo la yiraahdo allow ka qasaarin qarankeena quruxda badan qaranku waa qaranka Soomaaliyeed meel walba shanta Soomaaliyeed dhulkay degto oo afkaanuna oo yahay afka hooyo insha Allah maadaama ay qalqal iyo dhibaatooyin badan soo dhax galeen laakiin qaran ku ciidan waan ka baxayna waa experience insha Allah
كينا قروح دبادن الله قريبين إسلام كينا غالقا الله قوي قرآن كينا قول الله الله نبت غالي ويقبو نسي الله غير كينا ناقارب قادرو الله قاجدي يابا هارتانا ناقاد الغاد الله غارن كيني غير كسو نغضا قحوتينا لو دمان ويغسار ديعين أقامم كالنو إيمان ودلكي غبصادا قميسيكي قمنانا دبلو غتومين عرور تلغادنو قويسسكي لدومين وسيدي قد قيديد كان لاغا سيبيان قلالين xagaagii hore la soo dhaafay maraan wadanka Soomaaliya yara gaaray ayaa nasiib wanaag waxaan la kulmay abwaan Hadraawi Maxamed Ibrahim Hadraawi marka waraysi yar baan sameeyay aan wareysanayo funk suugaanta sidoo soo galay iyo hal abuurnimadiisa markaa waxaan weydiiyay taadu ma dhaxal baa mise waa hiba xaq Ilaahay ka siiyay maksuu 20 daqiiqo qofkii Hadraawi yaqaan uu kala fasirayay sida ku timaado dhaxal tamida ah iyo tahibada Ilaahay dadku ku dhaliyay abwaankan da'da yar leh nasiib wanaag isagoo labadiiba uu leeyahay hiba ina Ilaahay uu siiyay dhaxalna uu helayo waayo aabihiiba abwaan weyn oo caana ah hooyadiina waa marwada ay hor fadhido iyadan laftigeeda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed kama farmadnayn waa hadaan wali ila garanin waa Cabdillaahi Xasan Cabdillaahi Gani Xasan Gani iyo cadalkaahi inaan kuuliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هراء وحن سلامي يا دمان مرت شرف كسر قريب كشيء حفلة سيدا قروح بدن لو سوى قاسمي لو هيلين يو أفكار سوماليا وحن سيجارة وسلامي يا مرت شرف تا إنه قصة عطار ريتش بوتي في سوماليا وهيلين إنسان وحن كلام سلامي يا ضد كلاية سوق من قبيح حفلة أفكو وأضرب دحات كأمضى haddii aanu af meesha ka baxo umaduna ma jirto marka afku qiimo aad u leeyahay qiimaha afka qiimaha la cid u hiilisana waa cid umadnimadeena u hiilisay marka waxaan leenahay abaal baan idin haynaa cid wal oo af Soomaaliga u hiilisay halkan waxaan rabaa inaan ka akhriyo maaso tilmaamaysa dhaliilo haysta ummadda Soomaaliyeed iyo sida ku yimaadeen iyo sida loo gudbi karo markaad eegto ummadda qofka Soomaaliyeed oo qof aad u fiican oo qof karti leh waa qof naxariis badan oo jecel dadka inuu caawiyo waa qof furfuran waa qof lala heshiin karo laakiin ummad ahaan markaad u eegto sawirka ka duwan baa soo baxaya waa ummad dagaalamaysa waa ummad haysata waa ummad dib uga dhacday adduunka intiisa kale marka labadaas isku qaban kari waayay gabayguna wuxuu faahinayaa in marka laga tago midnimada isjacaylka wada shaqaynta iskaashiga inuu burbur sharciga la dhaafo xeerka la dhaafo inuu burbur dhaco burburkaasina wuxuu taabtaa dhaqanka dhaqaalaha qoyska diinta afka ilaa marka dambe dadku inta meesha kala yaacaan qoladay u qaxday ay afkoodii qaadato oo la yiraahdo ummad Soomaaliyeed loo jirtay halka deganaa jirtay marka gabaygu wuxuu ku bilaamayaa sidan maanku way gubxamaya su'aaliga guweyn buu hadba soo gudbinaya aqliguna galgalashada garabuu ileeyahay guntimaha dantaydiyo galdoloola aan qabo waxa iga gufayn kara tala iga gablooshiyo guuldarooyin baaha madaxayga gadayo mana nooli mana guyin markan gaar ahaanshaha la faguray waxaan ahay dadka gacal intaan qabo gododegay itaalkay alla ilaahay garmooye guuldarooyin maan arag markan magaca guud iyo Soomaali gabigeed gol u fiirshay eendayay gocandooyin mooye alla ilaahay gomaan arag afarta gadoodka guubaaba mooye guji oo waxyeel iyo ismalihi cid gulgul waxsan uga gol leeyahay tu u gaara mooye dantii guudba lama qaban dad malaha gaararkeeda iyo garbaheeda mooye maydu dayin gunteede dantu waxay la guri tahay ama noloshu guudka iyo gondaheeda taala hadba sida gugaagiyo u gorfaysa waayaha
waxaan soo gudbinayaa ama gabaygu leeyahay gallad waxa samayn kara guushana jilbaha dhiga dadka garasho dhaansada tala la isku geeyiyo garabsiga aqoonta geediga dhul doogliyo geyn kara barwaaqada waxaan uga gol leeyahay dal wuxuu gadoomaa dadna ganac wareega ama gayigu iisha geeduhuna ooyaan ciiduna gumowda adduunyadu ku goysaa gabdhahaagii nuurka iyo sida ubaxa geedaha hiri jiray gu iyo dayr guluubkoodu shiikha geenyooyinkaagii xidhan jiray guntiimadu hadba guuraha gobollada shisheeyaha iyagoo tahriib galay gocorradu shidhaystaan sharaftaadu gubataa garhmadoobahaagiyo guurtidaadii sheegnay geesigaagii sheegnaa iyo guurtidaaduba gidaarada fadhiistaan barna ciidgadoodiga intay gogasha hiifaan badda gawda haysiya gacamadu ilaystaan gosha xeebahaagana sunta lagu gumaadiyo bamka guba adduunka iyo geeridu timaadaa dhirta geedahaagana dhuxullahu gumaadaa afku kaa gadooma luuqadaadu guurtaa laba uurka wadagalay is-afgarani waayaan dhaqankaagu goostaa dhiiggaagu guura samihiiyo isgarabsiga marka laga gucleeyee nimba garabu roore gujo iyo waxyeeliyo ishoo laysku giiriyo golwareenku faafee gurboodka iyo carruuraha laga gooyo samihee garab u taagiyo qabiil laysku kala guro guula sahashaa ama sama la gaadhaa carraduna guyaadiyo ubax wada guduutiyo geediyo naq saartaa cudku godol daroora gugu iba samaada guunyaduna naaxda gacmo wada jir weeye marka laysla garab galo gunnada iyo iska cashiga gabdhihii iyo barbaartiyo dhallinyarada guudka iyo garhku weli madow yahay adaan kuu golleeyoon gaar kugu baaqee garashada haweetayn gudashada haweydayn ha ka guban tilmaamaha hana tirin garaadada hana tuurin guulaha hana moodin gaaladu inay kaagu weynto hanka ha iska gowraci gabdhihii iyo barbaartii iyo dhallinyarada guudka iyo garhku weli madow yahay adaan kuu golleeyoon gaar kugu baaqee higsashada ku gaadhsamo hirashada ku goob nolol habrashada go-ow tuul hagrashada gadaal mari qoloqolo ka soo guur gacmo wada jir weeye qoomiyadu soo gudba qoomiyadu soo gudub dhallinyarada guudka iyo garhku weli madow yahay adaan kuu golleeyoon gaar kugu baaqe bal gadaal nafta u tayo galin qudha ismiisaan waxaad guddo waxaad gasho isu gara waxaad tahay waxa kula gudboon qabo garabare adduunyada guddoonkeedii baatee godla naasaheedoo midhaheeda wada guro gabagabada jiiftada wuxuu gabaygu leeyahay hadda guushu waa been haddaan gudasha meel marin gobonnimadu waa muuq haddaan guurti maamulin geesinimadu waa madow haddaan garasha maarayn geyigaagu waa muruq hadba xoogga kaa gala gabayguna mur weeyaan hadduu gawsku tabaniyo sharciguna ma geediyo dad haddaanu dhaqan gelin waa mahadsantihiin wada ognahay far Soomaalida in la qoray afku waa sii jirayay taariikhdiisana hadda kama sheekaynayno laakiin waxa la isku raacay far af Soomaaliga lagu qoro 1972 طبعا macallimiintii waaga qortay way joogaan ama ka qayb gashay oo aanu Suuriya baan ku jiraa waayo isla sanadkaas baan dhashay 72 aniga iyo farta markaa isku daa afartan guurada markaa far Soomaaliga wuxuu qaatay naadigu bishii December 20-keygii kulankii uu guddiga fulintiisu yeeshay in la xuso waxaan markaa keenay oo ujeedadeedu ay ahayd ummadda Soomaaliyeed in lagu baraarujiyo afkeygii waagaa la qoray inuu halis ku jiro oo ka mid yahay afafka ay UNESCO haloo gurmada leedahay oo hadda inoo sheegaysay suuq ujeedada labaad ee ka lahayna waxay ahayd in daraasad lagu soo sameeyo lana soo bandhigo boogaha iyo dhaliilaha iyo qabyada qoraalkii af Soomaaliga tasaddexaadna in la sameeyo badbaadinta afka oo sida lagu badbaadinayo ay noqoto kolka daraasaadkaasi la soo sameeyo
ee laga doodo in loo sameeyo cid iska xil qaata badbaadinta af Soomaaliga iyo qabyatirkiisa oo loogu noqdo hadda deeta af Soomaaliga wixii looga baahdo inuu aaba yeesho afka kan wax laga weydiiyo waxa weeyaan samaynta akaademiyad af Soomaaliga daraasaysa waayahay ujeedooyinkii markaasi aan hawshaasi u galaynay mid ka mid ah weeyaan tan hadda uu wafdiga kani u socdo waxaan ka bilownay Djibouti ayaan ka bilownay olole laakiin ololahaasi intuuna bilaamin naadigu wuxuu sameeyay laba guddi guddiga koobaad oo ah guddiga qabanqaabada festival weyn oo dhici doona December 2012 sanadka dhamaadkiisa ayaa waxaan qaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo festival ballaaran oo Soomaali wixii karaya inuu ka soo qayb galo ay ka soo qayb galaan oo dhan walba leh guddigaas waa la magacaabo waxa kale oo la sameeyay guddi wacyigelinta oo iyaguna ka koobnaa 5 qof 3 baan hadda halkan ku soconaa oo Dr. Maxamed Daahir Afrax Umar Saciid Aadan Xasan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye iyo Amina Muuse Weheliye 5 qof inay maaragtaan ay wareegaan daafaha dunida oo Soomaalida lagu wacyigeliyo laguna dhiirigeliyo sanadkan inuu yahay sanadkii 40 guurada far Soomaaliga sanadkan inuu yahay sanadka ay tahay inaan xusno inay tahay sanadka uu maaragtaan ay qaan gaaray oo inuu neef baa la qali jiray Soomaaliya qofku markuu 40 jir gaaro in ama saddex risaaladii nabiyada loo dhiibay 40 jirka 40 jir buu afkeenii gaaray hal la xuso meel walba laga xuso marka guddigaasi Djibouti baan ka soo bilownay waxaanan ku tashanay madaxda siyaasiyiinta ah kuwa ganacsatada ah aqoon-yahanka dhalinyarta haweenka intaba inaan la hadalno waxaan Djibouti kula kulannay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar oo aan u bandhignay aad ayuu noo soo dhaweeyay laakiin wuxuu yiri aniga waa la iga curadsan yahayba madaxda kale ee Soomaalida Soomaaliga halkii uu ku dhashay ka soo bilaabo marka waan israacnay waxaan tagnay Muqdisho bishii 3 ayaan Muqdisho tagnay halkaas ayaan xaflad ku qabanay waxaan nidhi maanta ayuu bilaabmay dadaalkaygii iyo socdaalkaygii Muqdisho ka bilaabmay waan la kulannay madaxweynihii Sheekh Shariif waan u bandhignay oo waan u warranay hawshaas ayaan wadnaa madaxda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku marti qaadaynaa inay nagala soo qayb galaan oo dadaalkaas nagala qayb galaan madaxweynuhu na soo dhaweeyay waxa kale oo noogu ballan qaaday inuu naadiga xarun siiyo oo loo diyaariyo xafiis uu ku shaqeeyo naadigu dadaalkaas laamaha kale gaar ahaan laanta Jigjiga laanta Hargeysa iyo laanteeda Garoowe waxay hadda wadaan iyaguna dadaalkii aan ku tagi lahayn meelahaas ayay wadaan inta taa looga noqonayo ayaa waxaa la yiri socdo oo marka idinkuna kii dibadda bilaabo kiiban marka idinka bilownay haddaad tiin reer Minnesota reer Minnesota oo aan ku tala gashanayn sidii aan ugu tala gashanayn si ka sii diiran bay noo soo dhaweeyeen si ka sii diiran ayay noo tuseen inay nooga lex jeclo badan yihiin iyo inay nooga dadaal badan yihiin afka kan aanu socsoconno oo aanu dhaqdhaqaaqayno haddaba maanta wixii ka dambeeya xilkii idinka ayaan idinku soo wareejinay Dr. Maxamed Daahir baa cisho dhaweyd oo aan la kulannay madaxda bulshaweynta Minnesota ba wuxuu yiri waxaan nahay Hildon Hill ayaan idinka doonaynaa afkaas ayaanu soconaa inaad noo gurmataan baan doonaynaa waxayna yiraahdeen raggii maalinka aan la kulannay waan idinka guddoonnay idinkii oo badan baa tihiina waxaan rabnaa mar labaad haddana inaad naga guddoontaan ujeedadii aan rabnay ahayd sanadkan inuu noqdo sanadkii af Soomaaliga dhinacyo fara badan ayuu yeelan karaa inaad xafladan maayna xaflada kala qabsatiin inaad maayna sanadkan buugaag af Soomaaliya ku saabsan qortaan
ما أنا جورنالان هروج جرينا في الصومالي كقرن إن مرة أنا سميسان إن الإسكول سميسان في الصومالي قالوا قبرته وجهه دونا هياشة لكن سنة ككني وينو رادي نجاتي سنة ككني نقدر وين الراد كجتكنو وينو نقضه 10 point إنه نقضه مال مرة أنا أي كأنكلا بنو كرو كعنو إنه نقضه أوكي أنت مركان دافو وحنير كيف تيمين أياه ضوّلنا كم حرينا مالنا كم حنبينا وقت معينة تاريخ معينة وحلينا سنة كورنا وافرتن جورو سنة كورنا وحس هي فرحة مركا عدي ربطين قبضته جون أما جولاي يعدي ربط مالك اللي بودا واقعي كوي لا تنكي أكتوبر يعدي ربطين قبضته نوفمبر أفكو إنه وضلنا إيطال كيني إيو سدوا قلبه بصورة قليو أيانا لو فسحية لكن سومالي بين نادي أهان وحنا نبغى أنصني إن قبلنا فيستيفال كلا يسقوا ذا إيمانا يو ماشي حرنتو أيا هيدنا أنكو قبلنا وجيدا كلنا جيبوتي حلقة وقوم قبلنا حرنتينا وايتاي وأنا مال ليسقوا ذا إيمان كرا حتى النبض إنه سيدا أودي وحن جعلنا هاي فيستيفال كوين عدي أود أوليه إن النوت ماته عدي دراسات صو سمين كرتا إن صو سمايصو ويب سايت بان سمايناي ويب سايت كا سومالي بين أوليه هاي أيا عد والبا وحكسو هاجين كرتا عدي ديار إني بيبرز سو جد بيسو دراسات كأنتو شركة سو قيب كشو ومرتقى دنتين هدي إلى هاي هذا وحجري دونه وهلين دونه دور شيء فيستيفال وحوار رأيي وحنا نقنايا ضد علمية هذا راه شيء اللي قد دراسينه وهذا باب بلاب ماي أو أي قدي أقوياء الصومالية هي مسؤول كيهين ولا جوها جاجينه النظامنا يا موضوع إذا لقيت ضوء أفر واوين أفر واحد سيكلا فرعمة أنا أي كل شيء كيهين قيب تاس أيا كو نقنايسا قيبها لبعض واحد نقول الدون أنا هدي له بندق بوجانات يا عروفنات أيا وهيرين دون هدي له هذا سيدان أمياش أو قر حسان عروض فنك هذا كان صوب بندقتين يكوا كله كسو بير دونا أي وهليان بندق لو كسو بندق أبوغاك يقرأ الله الصومالي ده لقى صوب بلاه مالكي با تجا حال قري أو هذا جدي با وحيل صارن صورورن تأجبكي إيه وحياله واجس لقو بلاوي بوغاكتي لقرأي وهالرئيسي صور هذه وهالرئي ولا لها مارتانا في صوماليا iyo wixii la mid ahaa in la soo urusho oo la soo bandhigo sawir noqotaya video noqotaya cod noqotaya sidii heestii uu ka ashkatoonayay macallin Saciid ayf la kordhibay ayf loos dhibay iyo wixii la mid ahaa oo dhan ayaa ku soo bandhigi doona waxa kale oo wehelin doona hadii Ilaahay yiraahdo shirweynihii shanaad ee naadiga ayaa isna wehelin doona iyo soo bandhigida qaamuuska ugu weyn ee wali la sameeyay ee Soomaaliyeed قاموس أيام دعوة هدي له وقت دو قاموس كاسي ونسلنا هو حنا قلنا يا كيوجو وينا ولي عن قرنه قاموس كان وحلا جود دهفري دونا هدي له هذا فيستيفال كايا لجو دهفري دونا هذا كمان سوق وبيا آديات بعد مركل أمهات سنتين حلكي نسيت نقول وريكتين الله يديمكم قرب قالوا وأد ما سنتين والسلام عليكم وأنا جيدون كوبلان قاعدين أنا مانصدي هلكا كوي كانينين waan idin hakiyayuun hadeerto marka iyadii waan nagu soo celinayaa waxa aan u gudbaynaa dhexdii yartiba hadeerto inoo maasootay da'dii dhexa waan u gudbaynaa waxaan hadda ku soo dhaweynayaa maansanyaheena Cabdiqaadir Maxmuud Cismaan Mataan wada salaamay dhammaantiin هي ربان كورنا يا قبل يوم سجل أرجو وماذا هاي أفكو أو يجو إرشة يمية الماذا يجبي يبوي بولها كو إرجعنا هاي أجناك يجي على بولها ويأخذ يعني ولا لا بي محلي أخرج واي وان كله دوبيه حاولوا يديري أداك له هتاني محلي أورن واي haddii aan abaarsaday maxaa umaska lay seexshay ubaxiyo hilowgii maxaa aniga ii diiday isirguuris baa igu socdiyo inaan idlaadaaye
afafkaa horeetiyoo lumay amase ay faaday awlaanigii hore baan ka imi weydina ogeyne ingiriisigoon imanin baan jiray uluufaaday kushkaan aabbihii dhalay ahaa ama adeerkoode ashqaraa waxa uu go'i lahaa ama yulkuud aada awowgii horeetiyo hadduu iman lahaa nuuxe eeduhuu tirsanayaa ka badan ulaha geedaha haddii aad abwaaniyo tihiin niman aqoonteed leh sidee baa ilmada looga bi'in odaygan ooyaya asalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogaan waana ku faraxsanahay intii afkeeni hooyo way ku fogaa on caawalkan isku nimid ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa sama ku nool ahaada meeshaad ku sugan tihiin sareediyo qahay rabbahan saacabada u gooday samow calankeena iyo saaficiidayada sumcadda maqalkooda wacan waratehenkaye weyn oo aan ugu yeedhno baryahan dambe abwaanka reer Minnesota waa xaween adeerkay adeer Cusmaan Ducaale ayaa inoogu xigi doona oo isagana maanso farta iyo afka Soomaaliga ku saabsan inoogu maansan doona suhuur waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamayaa intiina qiimaha iyo qaayaha leh ee xafladan fadhida intii soo qaban qaabisay iyo intii isu taagtayba waxaan magaca reer Minnesota mar labaad aan ugu salaamaya kuna soo dhaweynayaa wafdiga qiimaha iyo qaayaha leh ee maxaan dhahaa guurtida af Soomaaliga inta u hadhay ee inooga timi Afrika gaar ahaan Djibouti wallahi anigu waxaan ka mid ahaa ardadii markii horena af Soomaaliga la soo qoray iskuulada bilaabay markii dambena elementary miyiga loo diray afraad baatankii in dadka af Soomaaliga baraan af Soomaaliga wax dhib badan ma ahayn dadku afkaan ku hadli jirnay waa la qoray waxaan rabaa inaan in yar oo af Soomaaliga ku saabsan xogaa 5 daqiiqo bal inaan u kala qaybsado waan ku tilmaamayaa af Soomaaligu wuxuu ina taray uguna ducaynayo inuu sii jiro isaga iyo inta isu taagtay daryeelkiisana Ilaahay miisaankood xasanaadka ku saaro qoraalka afkeenu ila isbaxay weeye indhii arageena alaylka ka fiiday ayaan rabbi weeye Ilaahayna siiyey la aawlanayaan kuwan baxnay weeye hawraariyo maanso aslaan dhaqankeena ficii isirkeena halkii laga uume Ilaah ka abuuray hidii arogaa الواد مدبكنا أنت ينكفانو متكي اسم كنا أنتو كرو قاضي أود ويا ليفتمي ويا يقولون أنت إسلامك قرآنك يدينك علمك بني آدم أنت إفك شوكتي وحجتهادي أودك كاني أدون كوا ينفعك كاني ومتكن كوا قوني بسي انتفعني قرآنك أفكينا أيامك يقوشا أنت كتدي qoraalka afkeena ayaankiyo guusha allow mid adkaada wiqiyaas alguurin abaydi dhalaanka ilmuhu ku hadaaqo oo abaada ka yeel qoraalka afkeena intii ka shaqaysay intii kartidooda iyo awoodda dul saartay dartii isu taagtay ilaa ku gargaaray allow ajarkooda abaal xasanaadka ayaanta qiyaame axsaanta ku sii kabacdi markaan dhameeyo faaleyntiisa marti sharafteenna
ka ugu horeeya ee hadalka inoo soo jeedin doona waa aadan xasan aadan balool magacaaga horta dambu idhiba balalo aadan waa hal abuur maansahayan aqoonyahan ka shaqeeya xarunta cilmi baarista Jabuuti bartay culumta sharciga iyo istiraatijiga qoray buugga suugaantiisa lagu ururiyo magaciisuna yahay saabxid diiwaan maanso aadan wuxuu turjumay buug caan oo la yaqaano oo la yiraahdo futuux al-habasha oo af carabi markii hore lagu qoray aadan haddana waa gudoomiyaha naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed fadlan si diiran oo reer Minnesota matalaysa aadan igula soo dhaweeya سنتين بسم الله الرحمن الرحيم مروين يا مدنيال السلام عليكم ورحمة الله صعب كي اللي يتري سودوينتي سهول بقاد وحوغاي جلسي درين خجلات له marka meeshii aan qolka hore ka bilow lahaa waxoogaa hadda waan doondoonaya waxa weeyaan waxaan ugu horeysiinayaa wixii loogu dambaysiin jiray waxaan ugu horeysiinayaa intii loogu dambaysiin jiray caad ahaan oo ah mahadnaq waxaan u mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya afka guddiga iyo martida ila socota dhammaan wiilashii iyo gabdhihii iyo duqeytidii na soo dhaweeyay oo ugu horeeyo abwaan macallin Saciid Saalax iyo mareegtiisii ayaan arin waxa iyaguna aan u mahadnaqaynaa dhammaan xarumaha Soomaaliyeed lanagu marti qaaday ama sina marti qaaday oo halkan aan joognay Safari iyo Al-Nuur iyo Afro iyo in kale oo badan oo la mid ah iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa mahadnaqaasi oo aan rajaynayo inuu cid walba gaadho si wadistiisa iyo si tirintiisana laga fiican yahay duuduubkaas inaan ku gudbiyo waxaan jeclahay inaan u dhaafo erey kooban ereygaas kooban wuxuu yeelan doonaa laba qaybood qaybta hore waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay igu simo Somali Pen ama naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed qaybta labaadna waxaan ka hadli doonaa xuska 40 guurada ama 40 jirka far Soomaalida haddaan ku horeeyo dabcan wax badan bay sheegi doonaa waan sugahay waxa dhameystiri doonaa haddii ilaahay yiraahdo gudoomiye sharafeedka naadiga Dr. Maxamed Daahir Afrax oo rajaynayo inuu aad u ururiyo intay dhaafaysa naadiga kan iyo sidii uu abuurmay waxay ahayd meel bandiran ah oo gariyaad ah waxay ahayd xilli mugdi ah waxay ahayd xilligaas oo ay dabayl kulul dhabanaysay kolkii uu Dr. Afrax iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo kale oo wiilal iyo gabdhaba lahaa ay dhulka ku joojiyeen laan kolkii dambe caleemaysatay oo ubax yeelatay oo jirid adag yeelatay waxay ahayd 1996 markii aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka soo qaxay dagaalkii sokeeye oo dibadda isku helay ay aasaaseen naadi kulmiya mideeya aqoonyahanka Soomaaliyeed naadigaasina waxa uu la baxay naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed wuxuuna isla sanadkii 1997 xubin ka noqday urur weynaha caalamiga ah ee loo yaqaano PEN International ururkaas oo uu xubin firfircoon ka noqday min maalinkii la aasaasay ilaa maanta haddaba naadigaas waxaa aasaasay dad aqoonyahan Soomaaliyeed oo aan ku ekayn gobol
waxaan jeclahay inaan weliba farta ku adkeeyo Dr. Maxamed Daahir Afrax markii naadiyay inuu safar dheer ku maray dalalka af Soomaaliga lagaga hadlo oo dhan ee Geeska Afrika si uu soo ururiyo saxiixyadii shardiga u ahaa in naadigaasi laga aqoonsado bahda caalamiga ee Ben International ama Ben International kolka aqoonyahan Soomaaliyeed oo gobol ku ekeyn oo siyaasad midabkeed gaar ah lahayn oo aan lahayn gobol iyo maaragtay sidaan sheegay xisbi gaar ah aqoonyahan Soomaaliyeed ba markaasi sameeyay oo gobol walba leh oo cid walba leh nidhaahdo ujeedooyinkii naadigaasi loo sameeyay waxay ku saleysnaayeen ujeedooyinka uu leeyahay ururweynaha caalamiga ah waxa kale oo lahaayeen ujeedooyin Soomaalida si gaar u khuseeya waxaana asaas u ah kow horumarinta afka suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa kamid ah ujeedooyinka waaweyn ee uu naadigu lahaa ilaalinta iyo difaaca xorriyatul qowlka iyo saxaafadda iyo saxafiyiinta waxa kale oo kamid ahayd ujeedooyinka maaragtay ururka loo aasaasay kobcinta iyo dhiirigelinta hal abuurka da'da yar iyo faafinta aqoon isweydaarsiga iyo wada dhaqanka bulshooyinka ujeedooyinka iyo kuwa kale oo ah kuwa caalami ah iyo kuwa gaar Soomaalida u ahba ayuu naadigu isku taagay geedi socodkii naadiga haddii aan wax yar ka tilmaamo naadigu wuxuu ku dhashay London sanadka aan sheegay 97kii aqoonyahan Soomaaliyeed oo aanan adduunyo xoolaad isku urursanin hantina aan haysanin oo badheeray ayaa sameeyay muddo ay halka ku halgamayeen kolkii la soo gaaray 2003 ayuu naadigu wuxuu qabsaday shirweynihiisii labaad oo dunida oo dhan la iskaga yimid xilligaas oo anigu aan naadiga ku soo beeray aan xusee waxa isku yimiday in ka badan 150 aqoonyahan iyo hal abuur iyo fannaan oo Soomaaliya waxayna joogeen 10 beri ayay waxay ku shirayeen oo ay fadhiyeen guriga ummadda ee Djibouti shirweynahaas oo laf dhabar u ahaa naadiga in uu taabagaray si loo sugo waxa kamid ah waxyaalihii ka soo baxay in uu naadigu u soo guuro Geeska Afrika xarun ahaan meeshii Soomaali deganeed ee markaa nabad ahayd oo Djibouti ahayd ayaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle waxa uu ku marti qaaday naadiga in uu Djibouti dego oo xarunna uu siiyo taas oo naadigu uu runtii u riyaaqay madaxweynaha Djibouti halkaas ayuu naadigu saldhigay 2003 kolkii naadigu halkaas degay fursad waxa uu u helay inuu sameeyo dhaqan aan horay u lahayn Soomaalidu dhaqan haddii aan lahayna inagu yaraaday waxaa bilaabmay waxa la yiraahdo aqoon wadaag oo laamaha uu naadigu ku leeyahay Geeska Afrika ha noqoto Djibouti ha noqoto Jigjiga Hargeysa Muqdisho Garowe intaba waxa ka bilaabmay barnaamij loo baxshay aqoon wadaag waxaa la baray oo bilaabantay inaan isbarno aqoontu inaan cid gaar ah marti wahay aqoontu inay tahay wax la wada leeyahay aqoontu inay tahay wax dadka ka dhaxeeya mar walba in la isku yimaado kulanno aqoon isweydaarsi iyo aqoon wadaagis ah waxa ka sii dhashay taasi in magaalo ay uga sii abuurmaan reading clubs inay ka bilaabmaan oo dhalinyar ay isku tagto buugaan la soo akhriyo hal maansa la soo akhriyo oo sidaas ku sii faafa dhaqankaas waxaa bilaabmay dhaqanka wax la yiraahdo daahfur oo buugii uu qof aqoon-yahanay qoraba in loo sameeyo xaflad weyn oo lagu maamuusayo laguna daahfuray marka daahfurka buugaagta ayaa uu naadigu hirgeliyay wuxuu hirgeliyay naadigu oo dhaqan noqotay bandhig buugaaneedyo la isku keeno inta ugu badan la heli karo buugaag dad Soomaaliya ay qoreen oo ku qoran afka hooyo ama afaf kale si loo dhiirigeliyo akhriska iyo qoraalka
waxaa taasi aan tusaale uga soo qaadayaa bandhig buugaaneedka joogtada ah ee Djibouti iyo bandhig buugaaneedka Hargeysa oo sanad walba la qabto bisha July. waxaa bilaabmay dhaqan kale oo ah xusaska maalmaha lagu maamuuso cilmiga iyo aqoonta. waxaa ka mid ah inaan dhaqan gelinay ama naadigu dhaqan geliyay xuska maalinka afka hooyo oo ku beegan 12 February sanad walba oo markaa laamaha naadigu laan walba ay halkayga ku xusto. waxaa ka mid ah xuska maalinka buugga iyo qoraaga oo ku beegan 23 April iyo sida maalinka macalinka maalinka akhriska iyo qoraalka. maalmahaasi oo maalmo caalami ah oo maamulada iyo dawladaha af Soomaaliga lagaga hadlo aan ku dhiirigelino inay ka dhigaan xataa National Day oo dawladdu iyadoo ay iska xilqaado wasaaradaheega tacliinta iyo kuwa dhaqanka. naadigu markaa wuxuu furay dhaqankaasi cusub ee haddaan soo sheegay. dadaalkiisii halkaasi ka soo socday waxa uu soo gaadhay sanadkii 2010 in uu naadigu shirweynihiisii afraad ku go'aamiyo in uu xil iska saaro abaabulka xuska maalinka xuska 40 guurada far Soomaaliya. bisinka eebe anigoo ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim naxariistiisana guudkeena ha wada saarnaato dhamaanteen ujeedada kulankan maanta aan iskugu nimi oo ah bandhig dhaqameedkii afaraad xagaag kasta aad nooga barateen haddii aan nahay meertada aqooneed ee afka iyo suugaanta Soomaaliyeed ayaa xilkudheg sanadkan noo ah 40 guuradii farta Soomaaliga. sanadkan cinwaankeedii intaan yara bedelnay aan kulanka Minnesota iyo marti sharaftaas oo ah kuwan aniga hor fadhiyay safka ugu horeysa faahfaahin ballaaran aan hadhow ka bixinayo shakhsi kasta ka mid ah. laakiin haddii aan magacyadooda idin guud maro ay rahayn Maxamed Daahir Afrax, Aadan Xasan Aadan iyo Cumar Saciid Bile oo run ahaantii ka mid ah dadka u guntaday siday afka Soomaaliga ay sida u guntaday afka Soomaaliga inuu sii jiro oo ay ka shaqeeyaan oo har iyo habeenba isaga ay u soo jeeda ka shaqeyntiisa iyo sida ay u horumarin lahaayeen. iyagoo martidaas nooga timi wadanka Djibouti ilaa Afrika inooga soo mar labaad aan u mahadnaqdan sacabka ku soo dhaweyno horta in marti sharaftaas maanta nala joogta. marka waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka Masjid Ummat al-Islam oo aayadaha Quraanka inoogu furaya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إلى أن قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. آخر الآيات.
جزاكم الله خيرا. كلان كان شرفت بدن oo sida akhyaarta sharafta badan ay u martaqaadayay sheegeen inuu yahay arrin taariikhi ah aadna loogu baahan yahay in waxaan rabaa wax yar aayadaha aan akhriyo aad kale mowduucan ka sii fogeyn inaan ka cabiro ama aan ku bilaabo walaalayaal cabsida alle ka sakow maadaama dad muslimiin oo diinta aaminsan luqadu ama afku waxaa tiraahaba waa qayb ka mid ah jiritaanka bulshadeed luqada ama afka waxaad ku cabirtaba waa qayb ka mid ah jiritaanka bulshada lafdiga luqada marka laga sheekin waxaan rabaa inaan wax yar islaam ahaan aan ku saleeyo mowduuca isaga erayga luqada alimaam saaxibu qaamuus المحيط مركو لفظ اللغة عبرية وحكى عبر اللغة لفظ عربي أصوات يعبر بها كل قوم من أغراضهم وحال اللغة لا يقال عربية والصوت يدواق بلشو والباء مقولة كستوى أي هدف كولك عبر لغة مهم لغة كما سريسون بجرت الأدون كاللغة كسريسون وحصور دقالة in luqada hadba diinta qofku aaminsan yahay diintiisu ku soo degtay inuu si gooni u qadari oo waa luqadii diintayda uu leeyahay waa weelka diintayda ku soo degtay laakiin min haythu luqadi luqad kama sarreysan inta quraanku soo degin carabiga luqadahaas uu ka mid ahaa arigan aan joogno gabadhu marwo kama sarreysan laakiin marwada markuu ninkeeda ariga Mareykan noqdo madaxweynaha maxaa loo yaqaanaa soo lama dhaw marwada koobaad waxay la dalacaysaa ninkeeda saasoo kale luqad walba bulshada ay iskale meesha ay joogtaa maanta luqada ingiriiska adduunyada kama sarreyso laakiin waa nation ama waa ummad xadaaro yeelatay adduunyadii hogaaminaysa isteerinka iyaga haya saa daraaddeed luqadaha kale kama fadli badno laakiin waa luqad soo kacday waa luqadii maanta ilbaxa iyo xadaarada saa daraaddeed soomaaligu luqadahaas uu ka mid yahay hadba meesheenna waan dhigno ayuu yaalayaa luqadu markay dhalato waa la korin karaa haddii la koriyo la kobciyo way koraysaa haddii la korin waayo fadhid bay noqonaysaa bal way dhiman doontaa haddii dadkeeda ka siixdaan marka ma rabno luqada Soomaaliga oo luqadaha ka mid ah Allah subhanahu wa ta'ala aadan u bari inkastuu sheekh axmed taajir uu ka hadlay afka aan maanta fartiisa ka hadlayno iyo muhiimaddu leedahay farta keliyata kama hadlayna waxay nagu khasbaysaa taas inaan afkana ka hadalno maadaama waliba dadkeenan qurba joogta afkii uu si baaba'ayo UNESCO oo u qoondoosay Febraayo 22keena sanad walbaaba afafka hooye ee adduun weynaha dhan in lagu xuso oo waliba afkeena si gaar ah ay ku jiraan inay afafka looga baqayo inay dawar go'aan u keeno ku jira ayaa sanad kaste meertadayada aan iyo ururka qaliinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed oo madaxdeedii maanta marta sharaf inoo yihiin aan sanad kasta isku daynayno barnaamijyo ka sameeyno oo afka hooyo muhiimadiisa ilmaha in lagu barbaariyo in guriga afka Soomaaliga laga hadlo sidaan afkii u dabargoyn maxaa yeelay hadii dadka ku hadli waayaan afku u dabargo'aya aan soo ogaatay 1972 October 22kiisii farta Soomaaliga in laga hadlo qoraalkiisa fartee baa lagu qorayo doodiisu mid aad iyo aad uga fog bay ahayd oo mar hore ayaa la bilaabay hase ahaatee maalintaas ayaa lagu dhawaaqay markii lagu dhawaaqay ka bacdi ayaa intiina xasuusato xilligaa jirtay ayaa ogey xasuustii ayaa waxaan ku xusiinaynaa codkii lagu baran jiray ee reeriyowga laga soo dayn jiray oo cadarka ahin fanaanad aad iyo aad u weyneedo Soomaaliyeed hoboladii waa bari kamid ahayd haddana dadka furfurcoon ee bulshada ku dhex jira ee qayb kasta bulshada ka qaadata cadarka ahin iyo inta dhalinyarada maanta kula codaynaysa heestan xasuusinaysa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf weyn ah oo farxad weyn ah inaan ka soo qayb galay shir Soomaali u dhan tahay oo isku raacsan tahay waxyaalaha kale oo dhan way isku laynay laakiin ilaa hadda afka isku maynaan layn waa ilaahay mahadi marka groupkaygii way baqdeen masraxi bay ka baqdeen marka waxaan u malay halkaas ay ka tiiminayaan
markaa waxaan heestii markii af Soomaaliga la qoray ayaan in yar inaga xusuusinayaa وإلى مهدي كان بوانكا أنك برنو أفك الصوماليات باتشاح وإلى مهدي كان بوانكا أنك برنو أفك الصوماليات إي أو waxyar baan raacinaya oo dardaarana oo afkan aynu ku hadlayno waxaynu ka soo gaarnay awowyadeen waxaynu ka soo gaarnay ayayooyinkeen awowgiibu ka soo gaadhay awowgeeni kale awowgees kale ka soo gaadhay innaga joognaa aabayaasheen baynu ka soo gaadhnay waxaa la rabaa innagana carruurteennu inay inagala hadho deedna ayagana carruurtoodu ka soo gaadho marka haddii aan jiilba jiil u dhiibin qoloba qolo u dhiibin dee wuu tirtirmayaa maalin dhaweyd waxaa la sheegayay waddan islaam waddan meelahana joogta oo keligeed bay luuqad dhimatay bay keligeed ka taqaanay islaantii baa la sheegaya BBC waxay sheegtay islaantii inay dhimatay afkaas wuu dhintay afkeenna marka ololo badan baynu ku haynaa halkan kuma soo gaabin karo qolooyinka kale sheegi doona marka tahyir baan tirinayo inuu qofba qof inuu xilina saaran yahay de marka waxa la yidhi waqtigu wuu sansumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxa sahayda uga taga kii hore u sagootiyay dadka seexda mooye sinjigii awow iyo sumadaas noolaan waxa adag silsilada Soomaaliyay waa sideed ay ku jeceshiin sad bursiima maahe garashadan saboolkii waxay sahansanaysaa waa sayma iyo hoog murtida iyo sarbeebtiyo suugaanta tiini way sal guuri doontaa maahmaahiyihii sula sibiq bay u wada lumi saadaa la maqanaha وعروتان ولي دلن سادا الله مقناها سقير كين آن دلن إيجانا سدكودي كمسمي كريسان وارد سيجينيسان سعيد يا أفرح يا حسن هذا ما إذا سيف فاهن يا أنت الضمبي يو نين عبد الله اللي يروح الكافر دي يو بروبا بدن إيري بقى تنقوا شو بودي وعرب يلي اللي يبغى الملايين إيري يقوم يبسنا خصوصا مركوف الصباح أفكي قلاد همودين عربك قلدي ما يسيدي أنا أقولي أنا قاعد شغلي وش يسمع أفكي قلاد همودين عربك قلدي ما يسيدي أنا أقولي يوسف ديرية أرضي دائر لليرد جامعة University of Minnesota دكتا أرضي معلم سعيد صالح كبعدنا مرتدى دائر تأه كمد أرضي كمد إلا أركو أو وليبا وكمان صوده ويراه مان سدي سوغو ما قدر الصومالي يساهي جتجين أي كل يرجع لصادق أركي سينانا دائر تيود ولي أنا ينور دمان ولي أنا كوي أفكي لقي أبا بين كويني ونفسي حوشينو لسه دوية آدم سida magaceeda waxa la dhahaa Soomaaliya saaxay ku deeyay waxaan isku dayayaa inaan afkii iska dhigo afkii waa hadda hadlaya samaanadan jiray sawdka afkii iyo sanqadhun kaliya lagu soo cayay Soomaaliyaanaha saaxiibayaal ani la safto sumcada aanu ahay baa iga sunto sare iga dhigay sida kuma ekee sumad lay qoraa Soomaaliba dhammaan laga wada safo 10 sida la akhriyo sax baa loogu dhigay buugta la iga simay warsagoontiga iyo waraaqaha sirta saldhig baan waxay adduunyadu sahwiyo marba sidii isu taag waxba loo suro kama soo sheey sariirtii waanay daba la iga suray saacad loo dagaal seef boodaysa dadkay lagu sur jaray saacadii kastaba Soomaali dhehe kii aan salkiyo sifada u ahaa kii aan salkiyo laanta sariyo sifada u ahaa xabaal buu sameeyay ama waa socdaal safar dheer ka galay saldhigaygi guri sax u fiiri dhigo kii siibtay aakhiro saftiyo kii sabakaloon Soomaaliya ahayn afkeedaba kor sudhac oo iga samriyo kii seexdeen sabigiisi barin way simeeyeen sax u fiiri dhigo midka sii maqane waxa soo socdiyo saadaal aqoon saacada wax jira ma basixi kare
haddii aan sidaan sahaylaanta aan ku suganahay surin aan mariyo saldhig layga helin inaan sii jiraa su-aal bayba geli soomaaliyey adigaan sirtaa sooyaalka sumcadda sahayda ahaye yaanan siibanine saac haygu dayn asaamantiin